arrinta ku saabsan qof muslimi ma booqan karaa xabaalaha gaalada. culimada islaamku waxay u badan yihiin, shaaficiyadu ay ka mid yihiin, qofka muslimka waa u bannaan tahay inuu booqdo xabaalaha gaalada. waxaana u daliila nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiistay laba arrimood, laakiin waxa isweydiin leh qofka muslimka ee xabaalaha gaalada muxuu u booqanaya? wuxuu u booqan karaa qofka muslimka ay kama qeyb geli karo xusaska diiniga ah ama caado iyo dhaqan gaalada u ah. inaanu ka qeyb gelin waxa ay ka mid tahay albaraa'atu min alkufaar, ka beri noqoshada gaalada. ilahay uhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibraahima waladiina macah id qaaluu liqowmihim ina buraa'u minkum wamima tacbuduuna min duuni illah. hadduu qofka muslimka ay kala qeyb galo xusaskooda diineed ama kuwa dhaqan iyaga u gaara ku salaysan, qof isu ekeysiiyey buu noqonayaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum. qofka qole isu ekeysiiya waxa uu uga ekaade uu ku waafaqay iyaga ayuu kala xukum yahay. hadduu waxaasi gaalnimo yahayna waa ku gaaloobayaa, hadduu bidco yahayna qof bidco sameeyey buu noqonaya. hadduu macsiyo iyo fisqi yahayna qof dembaabay oo shay macsiyo ilaahay u diiday sameeyey ayuu noqonaya. ma salaami karo sida dadka muslimiinta qubuurahooda markuu booqdo u salaamayo. umana ducayn karo qofka muslimka ah qof gaalnimo ku dhintay. mana samayn karo oo xabaalahooda dushooda kuma samayn karo iyo meel kala toona waxay ka dhex muuqato tacdiimu lahum, weyneyn uu weyneynayo, sida ubaxyada la dhigayo iyo aamuska loo aamusayo iyo in gacmaha tusaale ahaan laabta la saaro iyo waxyaabaha lamidkaa, qowl iyo ficil kaste oo gaaladaa dhimata ee meesha ku aasan lagu weyneynayo qofka muslimka ay ma samayn karo. waxaa qura xabaalahooda u booqan karaana waa lilictibaar, waa inuu ku cibro qaato. waxaa iyaduna jirta oon baraarujinayaa in dadka qaarkood ay isku khaldaan masalada ku saabsan ziyaaratu maqaabir alkufaar, booqashada xabaalaha gaalada ee loo booqanayo in lagu cibro qaato saasi aynu sheegnay, iyo arrinta ku saabsan in laga qeyb galo xus ay gaaladu u samaynayaan kuwoodii dhintay oo ay ku weyneynayaan oo weliba ciid ay ka dhigteen sanad walba soo noqnoqonaysa. labadaa masalo waa laba masalo kala duwan, in la isku khaldaana ma banaana. arrinta ku saabsan qof muslimi ma booqan karaa xabaalaha gaalada. culimada islaamku waxay u badan yihiin, shaaficiyadu ay ka mid yihiin, qofka muslimka waa u bannaan tahay inuu booqdo xabaalaha gaalada. waxaana u daliila nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiistay laba arrimood, inuu hooyadii dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo iyo inuu qabrigeeda booqdo. tii dembi dhaafka waa laga diiday, laakiin ilaahay wuxuu u fasaxay siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu qabrigeedii booqdo. asalkuna waxa weeye nebigu wuxuu sameeyo ee arrimaha diinta ku saabsan in dadka muslimiinta ahina ay kaga dayan karaan. laakiin waxa isweydiin leh qofka muslimka ee xabaalaha gaalada muxuu u booqanaya? wuxuu u booqan karaa un lilictibaari faqat, inuu ku soo cibro qaato oo gaalnimadaasi ay ku dhinteen ilaahay uu ka magan galo, asbaabaheedana uu ka fogaado. ma salaami karo sida dadka muslimiinta qubuurahooda markuu booqdo u salaamayo. umana ducayn karo qofka muslimka ah qof gaalnimo ku dhintay. mana samayn karo oo xabaalahooda dushooda kuma samayn karo iyo meel kala toona waxay ka dhex muuqato tacdiimu lahum, weyneyn uu weyneynayo, sida ubaxyada la dhigayo iyo aamuska loo aamusayo iyo in gacmaha tusaale ahaan laabta la saaro iyo waxyaabaha lamidkaa, qowl iyo ficil kaste oo gaaladaa dhimata ee meesha ku aasan lagu weyneynayo qofka muslimka ay ma samayn karo. waxaa qura xabaalahooda u booqan karaana waa lilictibaar, waa inuu ku cibro qaato. waxaa iyaduna jirta oon baraarujinayaa in dadka qaarkood ay isku khaldaan masalada ku saabsan ziyaaratu maqaabir alkufaar, booqashada xabaalaha gaalada ee loo booqanayo
in lagu cibro qaato saasi aynu sheegnay iyo arrinta ku saabsan in laga qayb galo xus ay gaaladu u samaynayaan kuwoodii dhintay oo ay ku weyneynayaan oo weliba ciid ay ka dhigteen sanad walba soo noqnoqonaysa labadaa masalo waa laba masalo kala duwan in la isku khaldaano ma banaana qofka muslimka ay kama qayb geli karo xusaska diiniga ah ama caado iyo dhaqan gaalada u ah inaanu ka qayb gelin waxa ay kamid tahay albaraa'atu min alkufaar ka beri noqoshada gaalada ilaahay wuxuu qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibraahiima waladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa buraa'u minkum wamima tacbuduuna min duuni illah hadduu qofka muslimka ay kala qayb galo xusaskooda diineed ama kuwa dhaqan iyaga u gaara ku salaysan qof isu ekeysiiyey buu noqonayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka qole isu ekeysiiya waxa uu uga ekaade uu ku waafaqay iyaga ayuu kala xukum yahay hadduu waxaasi gaalnimo yahayna waa ku gaaloobayaa hadduu bidco yahayna qof bidco sameeyey buu noqonaya hadduu macsiyo iyo fisqi yahayna qof dambaabay oo shay macsiyo ilaahay u diiday sameeyey ayuu noqonaya ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa wanaagsan ee kitaabkiisa uu ku ammaanay sifaadkooda wuxuu ku daray meelaha lagu hayo waxyaabaha khaldane sharciga ilaahay khilaafsan in aanay ka qayb gelin xataa hadday soo maraan inaanay waxba ku darsanee hore ay u dhaafaan waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waxaana u daliishan jireen culimadu horeysiyo dambaysaba aayaddaas ciidaha gaalada iyo xusaskooda dadka muslimiintaha inaanay ka qayb gelin waana arrin ay culamaa ulislaam isku waafaqsan yihin inaanay banaanayn